Waad salaamay dhammaantiin. Waa Axmed Kaafi oo mar kale idin leh soo dhawaada. Casharkan waa casharkii labaad ee back endiga tababarka shaqaalaha Lul Solutions aan ugu talagalnay. Dadkii kale oo ka faa'iideysan karana aan si publica uga soo dhignay. Casharkii ka horreeyey ee ahaa jhipsterka bilowgiisii ahaa oo aan kaga hadlayay si qaab monolithic application jhipsterka loogu sameynayo aniga oo isticmaalayna generators ka jhipster yiraahdo waxaan soo geliyay YouTube-ka. Waa cashar dheer. Anigu firaaqa inta badan ma helo mana jarjara casharada hal mar baan iska soo geliyaa inta iska duubo. Halkan baad ka arki kartaan. Waa kana casharkan waan soo geliyay kan kale hadda aan duubayo iyo kuwii kasii dambeeya waan soo gelin doonaa insha Allah haddii la yiraahdo. Aan ku noqdo presentationkayagii maantayto waxaan kaga hadlayaa akhbaarteeda qofkii doonaya la soo xiriiro halkan bay kala soo xiriiri karaa intaas. Waxaan doonayaa inaan ka hadlo sidii maaragtay aan u samayn lahayn systemkan. Aniga waqti badan baan geliyaa systemkan xaqiiqdii waqtigayguna aniga wuxuu leeyahay qaali waa laga yaabaa dad badan inaad markaad aragtaan waxaa jirta maadaama aan casharadan bixinayo oo waqti badan aan gelinayo in kaliya in laba shimbirood baan rabaa inaan hal dhagax ku dilo. taa macnaheedu waxay tahay aniga oo idinka wax idin baraya ayaa haddana waxaan doonayaa inaan dhiso systemkii aan waqtiga gelinayay tusaalaha idinka aan sameynayay in uu noqdo system dadka wax u tari kara gaar ahaan dalkayaga. waa ogtihiin systemyo badan oo software buu u baahan yahay. systemkan aan maanta sameynayo waxaan doonayaa inuu dadka ama wadankii dowladda haysata ama ama dadka jooga ama wadamo kale xataa ay isticmaali karaan oo dunida soo koraysa ah ay u isticmaali karaan systemkan si ay uga faa'iideystaan. waxaan sameyn doonaa waan qaadi doonaa GitHub-kan gelin doonaa. dad badan baa laga yaabaa inay wax ku soo daraan inaguna maalin walba ku daraynaa. kadibna system weyn oo dadku u isticmaali karo malaayiin dollar mararka qaarkood lacag lagu bixiyo buu noqon karaa. marka hadda waxay ku xiran tahay community fiican si aan u helno. aniguna tababarka waan wadayaa. shaqaalaha Lul Solutionsna wixii markaas ay awoodaan ku dara baan leeyahay oo waqtiga maaragtay ku dhumiya. waqti naga lumayana maahan ama wax dhumaya maahan oo wax mataqaanaa mar walba codeki iyo wixii aan qornay waxaan gelinaynaa GitHub-ka dadkoo dhan way share garayn karaan. marka requirementiga aan wadno waxay yihiin waxaan doonaynaa inaan sameyno system diiwaan geliya guryaha u diiwaan geliya wadamada soo koraya. systemyada guryuhuna waa sida taqaaniin guri walba waxaa la xiriira akhbaar badan baa la xiriirta oo ay ka mid tahay guriga addresskiisi. guriga marka la diiwaan gelinayo waa in guriga address uu yeeshaa si loo aqoonsado gurigii meesha uu ku yaalo. addresskana wadamada sida Soomaaliya oo kale iyo address guri leh ma jiro. guri walba number aan la garanayn baa dusha kaga qoran. shirkadii timaadaba midda biyaha midda korontada mid walbaba number bay albaabka ugu qorataa iyadoo ay leedahay wax standard ah oo address ah oo numbering system ama address system ma jiro. marka tusaalaha aan soo qaadanayna halkan waxaa ka mid ah systemkaas ayaan dhisaynaa idinkoo wada arkaya technologiyadii business designkii mataqaana business logicii sidii aan u deploy garayn lahayn ilaa iyo marka ugu dambeysa uu dadku ka isticmaalayaan public APIs aan ka dhigayno stateski streetski waxaasoo dhan gedi. marka guriga markaad diiwaan gelinaysid guriga waa inuu saddex waxyaabood baa lagu aqoonsadaa sidaad ogtihiin ama block code waxa la yiraahdo ama postcode-ka meesha uu ku yaalo oo wadada geesaha ka marta guriga iyo midda kale oo ah wadadii hormaraysay ama wadada guriga hormarta magaceeda iyo numberka guriga ku yaala. intaas marka la helo intaas mesela Soomaaliya oo kale maanta inta magaalo intaas leh oo ay register garaysan tahay oo intuba database-ka ay ku jiraan ma jirto. marka waxyaabaha aan doonaya marka waxa weeye in aan intaasba marka hore system diiwaan gelinaya oo wadadii iyo block codeski diiwaan gelinaya. wadada laftigeeda waxay kusii taalaa district ama degmay ku taalaa. degmadaas laftigeeda waa in systemku uu diiwaan geliyaa. districtiga laftigiisa region buu kusii dhex yaala. regionka laftigiisa in la diiwaan geliyo. regionka laftigiisa state buu kusii dhex yaala. stateka laftigiisa in la diiwaan geliyo. marka waa system ilaa iyo sii soconaya si hierarchy ilaa laga gaaro qaybta kore ee wadanka ilaa iyo hoosna laga gaaro guriga numberkiisa la identify garayn karo. sidaan hore idin sheegana codeka markaan qorno waxaan gelin doonaa public. waxaan si public aan u share garayn doonaa. waxaan gelin doonaa GitHub-kan gelin doonaa. waxaan GitHub-ka ku leenahay shirkadayda Lul Solutions ay ku leedahay iyo waxyaabihii aan open source-ka ka dhigno dhanba halkan waxaan ku leenahay repository account baan ku leenahay repository badan aan ka abuuri karno oo wixii aan private noo mooyaane wixii public aan doonayna dadka inaan la wadaagno ama dadka kala wada shaqeyno ama aan dadka wax ku barayno in halkan aan soo gelino. sida aragtaan shaqaalaha
Lul Solutions qaar ka mid a maxamedyo badan bay badankood la wada yiraahdaa. Ninkan waxaa la yiraahdaa Cabdinaasir, aniga waxa weeye cabdicasiis, waxaa weeye maxamed isaaq, waxaa weeye maxamed deeq iyo maxamed cilmi. dhammaantoodba waxay ka shaqeeyaan iyo kuwo kale weliba halkan aan ka muuqanay shirkadda Lul Solution bay ka shaqeeyaan. waa rag developers ah, engineer front end iyo back end iyo database iyo dad badan isugu jira weeye. marka waxyaabaha aan doonaya marka inaan ido tuso waxaa ka mid a sida mataqaanaa halkan aan usoo gelinayno, sida codeka iyo githubkan aan iskugu xirayno, sida deploymentiga ama xataa waxaan isticmaali doonaa wax continuous deployment ama continuous integration la yiraahdo hadhow samayn doonaa. waxyaabo badan oo casriya oo xaqiiqdii latest technology wadamada reer Yurub iyo wadamada mataqaana America sistamyada ugu dambeeya isticmaalaan dhinaca developmentiga ama dowladaha isticmaalaan ayaan ku shaqayn doonaa. marka dhagihiina fura kana faa'iideysta. casharkii baan u noqonayaa. waxyaabaha aan samayn doona marka sidaan baan u raaci doonaa haddii la yiraahdo. nambarada sidaan ay kala yihiin, ilaa iyo maanta ma wada dhammayn karno, laakiin badankood intii aan samayn karno waan samaynayaa. waxyaabaha intaan ka horeeya inta waxa ku xigaan rabaa marka in mid baan ugu soo noqonaynaa oo midkii aan samaynaba waan select garaynaynaa ama structure baan ku samaynaynaa. waxyaabaha aan doonaya marka kale inaan idin kala hadlo waxaa ka mid ah casharkii hore. waxyaabaha tusaalaha aan idinku tusay wuxuu ahaa tusaalahan monolithic application oo JHipster lagu sameynaya. monolithic waxa weeye application haddii weyn oo wax walbo ay qabato hal meel la isugu geeyey, hal database oo weyn iyo hal mataqaana application oo weyn. dhowr xabo database-na way yeelan kartaa hadday doonto, laakiin hal application oo weyn oo codekeedu hal meel keliya la isugu keenay weeye. tusaale ahaan gatewaygii mataqaana codsigu imaanayay, waxaa laga yaabaa applicationku inay guryaha diiwaan geliso, waxaa laga yaabaa inay dadka diiwaan geliso, waxaa laga yaabaa inay canshuuraha qabato. waxaasoo dhan hal application oo weyn baa la isugu geeyey. browserka intuu ama browserka magaca kale Firefox iyo browserada midkaa doontaba adoo isticmaalaya. markii aad codsi u diro systemkaaga, HTML-ka u soo celiyo isagoo ku salaysan lagu generate gareeyay Angular ayaa loo soo celinayaa. Angular ma imaanaya dhinaca browserka sida cashirka hore baan idinku sheegay. saddexdan HTML, CSS iyo JavaScript baa imaanaya, laakiin Angularku wuxuu ku jiraa projectigaaga ku rangaraysmaya serverka. kadib markii ujeedkiisu waxa weeye in uu generate gareeyo HTML-kii browserka loo diri lahaa, oo batoomadii aad ku dhufan lahayd, formskii aad soo diri lahayd, sawiradii aad arki lahayd, waxaasoo dhan gidi HTML-kiisa waxaa noo generate gareynaya Angularka mataqaanaa serverka ku host garaysan ayaa sameynaya waxaasoo dhan. database-kana toos buu ugu xirmaya. hal database schema ayuu markaas samaysanaya oo la yiraahdo app name-ka magaceeda, application-ka markaas magaceeda loogu daray. laakiin sidan qaabkan ah waa qaab lagu wareero. application-kan way weynaanaysaa hadhow markii mid qayb laga shaqaynayo, qaybta property-ga markii wax laga shaqaynayo, qaybihii kale waxaa laga yaabaa inay jabaan oo ay ciladoobaan baa dhici kadha. haddii database-ka wax laga bedelayo, waxaa laga yaabaa system kale oo aan waxba ka qusin ama kan canshuuraha, maadaama hal database ay wadaagayaan, in uu asaga laftigiisu down noqdaa laga yaabaa haddii mid aad upgrade garaynaysid mid kale. marka ujeedka qaab kale oo waxaan soo wada idin barayaa mataqaanaa ama oo anagu aan ku shaqeyno idin tusayaa ka fiican qaabkan oo hal meel waxoo dhan inaad isku geysid ah. qaabkan waa qaabkan waxaa la yiraahdaa microservices with JHipster. waa design ka duwan kii hore ee hal meel waxoo dhan la isugu geynayay. tusaale ahaan application-kii sameynaysay property registration-ka qaybtan baan kasoo qaadanay oo kale. qaybtaas oo kale aan kasoo qaadanay inay tahay hal service baan ka dhignay oo gooniya oo codekeeda loo rangareynayo, server gooniya saaran ama container gooniya. containerka ama sida docker iyo wuxuu doona ha ahaado, container gooniya ku jira. sidoo kale populationka qaybtii ahayd ee dadka populationka diiwaan gelinaysay, qaybtan weli maan kuma idinma sheegin, balse ujeedku waxa weeye in aanan maaragtay aan idin tuso in laba system oo kala nooc ah oo hal system oo weyn dhowr system oo yaryar loo kala qaybin karo maadaama ay different categories kala yihiin. qaybtan waa qaybtii populationka sameynaysay. weliba xataa gudahaad usii geli kartaa populationka qayb waxaa jirta maaragtay signing iyo waxa la yirahdo isheeg
photo uploading processing mataqaana fingerprint waxyaa ku noocay kala sii noqonaysa iyada laftigeeda oo microserviceyo badan baad usii kala saarsaari kartaa marka ujeedku waxaa weeye in aad dhowrkii programba dhowrkii service ba hal meel aad isugu geysid oo isla quseeya oo ay si fudud loogu maintain gareeyo haddii kan aan ka shaqaynayno kan sidiisii usii shaqaynaya maadaama databasekiisa ay gooni u tahay iyo wixiisoo dhanba midada kale sida aragtaan microservice kasta database gooni uu leeyahay qaybtan hoose ee MySQL databaseka ay ku taalo waxaa weeye waa midan waa tii national property registration skiimadeeda databasekeeda oo systemka property registrationka ayaa isticmaalaya sidoo kale waxaa halkan ku yaala gatewayga skiimadiisa iyadana waxaa isticmaalaya systemkan gatewayga ah oo asaguna ah microservices entry point oo mid walbaba wuxuu wataa mataqaanaa serverkiisi kan spring boot baa ku jira sida aragtaan oo macal tomcatkiisii wixiisii oo dhan kadib wataa sidoo kale kana kiisi sidiisii buu wataa kana marka mid walba wixii macal deploymentigiisii databasekiisii monitoringkiisi wixiisoo dhan buu u gooni sidoo kale data marka faa'iidada ku jirta microserviceska waxaa ka mid a markaad systemkaaga microservices yaryar u kala qaybisid oo mid walbaba goonidiisa loo maintain gareynayo waa 100 system camal oo isku xiran oo hal shaqo wada qabanaya guud ahaan laakiin mid walbaba shaqadiisa goonida ah aad ugu takhasusay oo qabsan karo si gooniyan uga qaybsan yahay systemyada kale tusaale ahaan mid walba database gooni u yeelan karaa kan hadduu doono hadayta MySQL database baan aragnay kuwii kale inay isticmaalayeen kan population registrationka wuxuu isticmaali karaa hadduu doono Mongo database buu isticmaali karaa ama any other database kale oo aad doonaysid buu isticmaali karaa marka hal mid baa jirta systemkayga horta sidaan u ekaan doonaa oo database gooniyan u samayn doonaa mataqaanaa hal mid baa jirta marka systemkaaga sidaa u kala firdhisid system isku xirnaa oo isla xiriiri jiray oo class kale oo wacaya ama method kale oo wacayo sida isugu dhawaa ayaad kala fogfogaysay mar haddaad kala fogfogaysay systemkaas waa in la helaa wax meel dhexe oo sidii hal JVM bay marka hore ku wada jireen hal system class hal mataqaanaa class loading system hal meel bay classidiisoo dhan iyo wixiisoo dhan iskugu lagu load garaynayay hal codsi baa mataqaanaa ka dhexayn karay method meeshuu API kol ka sameynaya hadda wuxuu ka samayn karaa method buu wacayay oo classka kale uu leeyahay iyo si fudud mataqaanaa ayuu systemku marka hore isku xirnaa oo markuu ahaa monolithic oo hal meel uu yaalay laakiin markii la kala firdhiyay oo microservices laga dhigay oo meelo badan loo kala dirdiray systemkii weli inuu isla xiriiro baa la doonayaa laakiin hadda markii hore waxaa laga yaabaa in uu isku meel hal computer ku jiray laakiin hadda computerra kala fog ama mid laga yaabo inuu America yaallo midna yaalo London yaallo ayaa la kala dhigaya way isla xiriirayaan inkastoo aysan fiicnayn in la isku dhaweeyo ay tahay mataqaanaa balse tusaalaha aan siinayo waxa weeye in la kala fogeeyay markaas waa in internetka iskala xiriiraan waa in mataqaanaa ay protocols gooniya ay iskula xiriiraan waa in la helaa wax isku xira wixii isku xirayay ayaa waxaa la yiraahdaa registry ama service discovery system midkan dhexe ee hadda halkan noocyo badan baa jira waad arki doontaan jhipsterka wuxuu leeyahay mid gooniya oo Eureka la dhaho oo ay soo saartay maaragtay Netflix ayaguba inta qaateen open source ay wax kasii bedeleen jhipsterka marka ujeedku waxaa weeye in servicekan gatewayga marka uu doonayo inuu la xiriiro kan population registrationka ama kan national property registrationka markuu doonayo inuu la xiriiro in uusan toos ula xiriiri karinin sida aragtaan gatewayga waa meesha browserku markii uu codsi doonayo uu usoo galo browserka toos ulama xiriiraya microserviceska kale ee sida mataqaanaa population registrationka iyo national property registrationka toos ulama xiriirayo waxa uu sameynayaa marka isagu wuxuu la xiriirayaa gatewaygu toos ula xiriirayaa gatewayga markuu la xiriiro gatewaygana wuxuu leeyahay registryga waxaan u baahanahay service magaciisa la yiraahdo population registry kan ayaa marka hore servicekan arkaysaan service discovery systemka ay ku qoran tahay jhipster registry isagu service walba marka uu kaco oo uu soo kaco wuu register gareynayaa wuu yaqaanaa meesha laga helo adresska laga helo iyo sida loola xiriiro kadib markii akhbaartiisa uu helo ayuu kan usii gudbinayaa uu leeyahay okay gatewaygo markaad aniga ii timid servicekaad u baahnayd wuxuu ahaa net propertykan uu ahaa ama national property registrationka uu ahaa waan kuu gudbinayaa waa kanahay akhbaartaada ama codsigaaga API-gaagi usii su-aalaha waxaa rabtid weydii kana inta uu baxo oo akhbaartii wixii process gareeyo oo database-ka tago oo akhbaar kala soo baxo oo soo celiyo ayuu leeyahay okay waa kana gatewayga oo akhbaartii aad rabtay waa tan qabso
marka qaabkaasay iskula xiriirayaan marka qaabka aan u samayn doonana xaqiiqda waa sidan inaad microservice ka fahantaan waxyaabaha marka aan samayn doono aan idin tusayo aan ka baxo okay dib baan ugu noqonaynaa liiskeenii meeshan ahaa koobaad horta waan la sheergareeyey wixii screen diagramkii sidii ay kala ahaayeen midda labaad waxaan u baahannahay in aan install gareyno MySQL database-ka aan ku shubayno maxaa la yirahdaa systemyadan isticmaali doonaan waa inay computerka ku jirtaa markii hore casharkii ka horreeyay waxaan isticmaalnay database in memory oo aanan loo baahnayn in gooni ah ugu install garaysid aniga hadda halkan oo kale database-kaygu halkan bay igu jirtaa waan ku shubtay MySQL qof walba uu ku shuban karaa computerkiisa Google gare sida loogu shubo waad arki doontaa waxa weeye passwordkiisa ii sheeg admin baan ka dhigtay no actually ma kacsano inaan kiciyo weeye database-ku dansan yahay MySQL server start okay hadda wuu kacayaa waxaan leeyahay gudaha inaan u galaan rabaa admin ayaan passwordkay ka dhigtay qofna ka qarin mayo waa iska wax local development markii gudahan ku jira sidaad aragtaan show databases daan dhaho databaseska show databases inta databases ku jira kuwa dhowr xabaa ku jira gateway-ga iyo waxaas waa tirtirayaa wixii hore marka drop database gateway gateway-ga tirtir waxaan kaloo rabaa inaan tirtiro waxa inta caadiga loogu talagalay MySQL kaliya rabaa inaan kusoo reebo drop kan kale waxaa la yirahdaa isagana muxuu ahaa nap rob okay hadda daan dhaho show databases good waa hadda waa sida caadiga ahayd oo ku yimid MySQL-ka ku imaan jiray marka waxaan hadda sameynayaa marka haddii la yirahdo database-kan anigu sidaan ugu shubtay inaad ugu shubataan access-keeda aad taqaanid password-ka lagu galana aad taqaanid database-kaaga localka ku shuban kadib waxaa kaloo samayn kadhaa iyadana haddii aan ka baxo waxaa jira docker baa jira wax la yiraahdo oo ujeedka dockerka waxyaaba ku fiican yahay waxa weeye inaad computerkaagan ku shubtid maaragtay database waxa laga yaabaa inaad 10 database oo kala noocaad u baahato mid MySQL mid maaragtay MongoDB mid waxaa laga yaabaa systemkaaga aad ku check gareynaysid kala nooca waxaa laga yaabaa serverkaaga inuu ku jiro sheeg Ubuntu oo yahay adigana aad sida aniga kale hadda halkan Mac aad wax ku sameynaysid marka haddii aad rabtid in systemka masalan serverkaaga sida uu yahay ama database-yadaas faraha badan aad rabtid in sida uu systemka markaad develop gareynaysid u dhaqmayo inay u dhaqmaan markii productionka geysid waxaa isticmaali kartaa wax la yirahdo docker ama containers waxa weeye adigu operating system yar ama container loo yaqaano oo yar weeye oo waxaad dhihi kartaa oo lightweight oo memory badan aan ka isticmaalaynin waxaad dhihi kartaa intii aan ku shubi lahaa MySQL sida hadda aniga aan ugu shubtay hadda wuxuu ku jiraa systemkayga local hostigayga ku dhex jira systemkayga caadiga baan ku shubay MySQL download baan dhahay waa rangareeyay sida programyada caadiga oo aan ugu shubay Microsoft Word iyo waxaas oo kale baa ugu shubay marka waxaa soo download gareysanaysaa wax la yiraahdo dockerku waa system kale oo si fiican baan uga hadli doonaa casharkan aan uga hadli doonaa tusaale yar baan ka siinayaa dockerka markaad soo download garaystid images buu leeyahay horey loo diyaariyey waxaad dhihi kartaa mid MySQL isi mid waxaad dhihi kartaa maxaa la yiraahdaa Ubuntu isi mid waxaad rabtid isi kadib markaas waxaad dhihi kartaa ii rangare memory badan asagoo kaas qaadanin waqti badan aan qaadanaynin waa si virtual camal u rangareysmaya database-ki markaas waxaa leedahay database MySQL ii rangare oo tusaale ahaan hadda masalan docker compose masalan jhibister oo kale wuu la yimaada waa ina tusi doonaa iyadana sida loogu rangareynayo docker compose baa leedahay MySQL iyo rangare baa leedahay nimanka jhibister ka sameeyeen ayaa diyaariyey imagekan la socota jhibisterka la socota oo ku rangareynaysa maaragtay MySQL ku rangareynaysa oo si local ahaana kugu rangareynaysa balse
kaas advanceka gadaal baan idinka tusi doonaa. Hadda yaan idin wareerinayn, si caadiya waad ugu shubanaysaa computerkaaga sida aniga aan ugu shubtay. kadibna maaragtay waad rangaraynaysaa MySQL serverka, computerkaaga ku rangaraysmaya, kadib baan usoo noqonaynaa markaas. Okay, dib baan u noqonayaa, casharkii baan ku noqonaynaa marka meeshii aan maraynay. kuwan waan sameynay, labadaas installationkooda waan inaan sameeyaan kasoo qaadaya. Highlight gareeyo, had iska mari jaalle ama bahalkii nageed ma qurxoona kaas, farta keliyaan u baahanahay inaan kalar kale ka dhigo haddaan doono. Okay, labada waa sameynay. Next thing aan u baahannahay waxaa weeye inaan sameyno database schemas oo ku dhex jirta MySQL-ka. Laba schema waxaan qori doonaa, laba system. Mid waa system hore oo gateway-ga ah oo codsiyadu markay browserka ka yimaadaan ay soo marayaan, waana meesha maaragtay HTML-ka iyo waxaasoo dhan iyo lagu hayo, kadibna maaragtay microservice-ka usii gudbinaya sidaan idiin sheegayay. Waxaan kaloo sameyn doonaa service kale oo NAT, das waxaan usoo gaabinay National Property Registration System, keliyaan sameyn doonaa haddii la yidhaahdo. kaas labadaas markii database-kooda aan sameyno, kadib ayaan waxaan bilaabaynaa in aan software wixii create garayno, wixii o dhan aan hawshii aan wadanay. Marka si aan u dhaqsano, waqtigana aan u badbaadino, aan MySQL-kii ku noqdo. Okay, admin password-kii ahaa. Okay, waxaan leenahay hadda marka create database. magacaan u bixinayna waxaa weeye gateway, kan koobaad. haddii aadan samaynin hadhow markii aad run garaysid, haddaa ilaawdid in aad create garaysid schemaska. Schemaska waxaa weeye waa database-ka MySQL serverka weyn, MySQL-ka qaybo kala xirxiran oo tablada iyo mataqaanaa procedureski waxyaabihii dhan isla xiriira, informationka la xiriira hal web service ama hal systemba aad gelinaysid oo package ahaan ah wey. Marka adigu waa database baa la iskaba yiraahdaaba, inkastoo schema ay tahay. Database-ku database-ku sida caadiga waa computerka weyn ee MySQL-ka ay ku rangaraynayso, laakiin schemooyinkaas halkii computer ilaa iyo dhowr schemaad gashan kadhaa oo ama sub database wax loo yaqaano. Create database baan hadda gateway. Mid kalena ba haddana leenahay create database. waxaan kaloo leenahay magaciisa wuxuu ahaa NAT National Property Registration. kasoo gaabinayna intaas aan soo gaabinayna. Okay, haddaan dhaho markana show databases, haddaan dhaho database-yinkii labadii aan s baan ka tegay databases. sida aragtaan waa kana gateway-gii, kii kalena waa kana. Okay, hadda database-yadii waan haysanaa, waan ka soconaynaa marka ka baxayna. Okay, waxaan ku noqonaynaa instructionadeeni casharkii baan ku soconaynaa. waan sameynay macalinkan xaggan oo dhaaf adigu xaggeed meeshii laga sameynayo xagga dadka. Okay, tan ku xigta waxaan sameynaynaa GitHub account repository baan sameysanaynaa. GitHub-ku waa server ay niman lacag la-aan nagu siiyeen oo yiraahdeen mataqaana qof kastoo open source sameynaya, haddaad doonaysaan in codekiina aan meel dhexa ku haysataan, dadka la wadaagtaan ama gooni aad private haddii ahaato, waxaan idin siinaynaa server aad sida Dropbox oo kale aad codeka gashanaysaan, website aad ka galaysaan ood ka dhex arki kartaan meesha wax gashateenna waa idin siinaynaa. wax kale ma intaas keliya weeye. isagii baan hadda gelaynaa marka accountka meeshaasaan gashanaynaa, dadka kale si aan la wadaagno. magacan ayaan u bixin doonaa haddii la yidhaahdo repository-ga. waxaan hoos geenayaa midba anaga waxaan ku leenahay Lul Solutions. shirkaddan waxay ku leedahay sidaan haddaa idin tusayay, halkan bay ku leedahay page baan ku leenahay ama company. waxaan leeyahay repository cusub baan doonayaa inaan sameeyo. magacaan u bixinayo repository-ga waa kana national registration. waxaan leeyahay description yar baan siinaynaa. register actually not fiican tahay. Okay, kaa iska qaado, kadib public way, private kama dhigayno. dadka dhan private haddaan ka dhigno waa ma arkayo, laakiin in dadka dhan arkaan oo qof walba maaragtay oo wax ka download garaysan karaan doonayna. create repository baan leenahay. Okay, now repository-gii waa haysanaa hadda sidaad aragtaan.
good. Okay, magaceedan koobiyeysanayna sidaad aragtaan halkaas, ama halkaan aad ka koobiye kartaa, waad koobiyeysanayna repositoryga aan hadda sameynay publica ahayd. waxaan leenahay marka dib baan u noqonayaa. Okay, waan sameeyey taasna kalarka laan marsanaynaa marka isa noo dhibinin. Okay, waxaa noogu xigta marka hadda waan clone gareynaynaa in aan repositoryga aan sameynay maaragtay idinku markasta ma sameynaysaan repository, balse hadhow qeybtan keliya dambe ayaad sameyn doontaan oo ah cloning inaad ku sameysaan systemkiina aad gudaha soo gashataan. marka waxaan sameyn doonaa ilaa yiraahdo jooga okay cd lul tutorials training, sorry, backend, and then jhipsterkii casharkii hore aan sameynaynay generatorkii aan meesha kusoo shubnay kaasoo ahaa jhipsterka, isagaan isticmaali doonaa inaan wax ku generate garayno. marka halkan ayuu leeyahay ku samee. marka waxaan u bixinayno maxaa weeye, okay, kaas baan reclone garaynaynaa, balse waa okay, let's clone it, sorry. git markaa clone garaynaysa git baa isticmaalaysa. horaan waa aragteen markaan isticmaali jiray gitka, addresskii waa kana aan kasoo koobiyeynay sida aragteen. haddii aan isticmaalno ls, hadda aragtaan waa kana national registry uu isticmaalay. that means waxba kuma jirinin repository empty aan sameynay, laakiin wixii aan gelino hadda ka bacdi waan wax gelin doonaa. markaan inta wax gelino waxaan dhihi karnaa serverka waxbaan gelina meeshaane, waxaan gelinay noogu xaree serverkan baan dhahaynaa. laakiin hadda waxaan leenahay national, gudahan u gelaynaa. sida aragtaan haddaan ls dhaho waxba kuma jiraan, laakiin haddaan isticmaalo itus wixii hidden ah, haddaan dhaho faylasha hiddenka ah lsa baan leeyahay, waxaad arki doontaan .git baa ku jirta. soo ma jeedid, filekan git baa track garaynaya, serverkii baa la socda oo wuxuu og yahay wax kasta oo meeshaan la geliyo. haddaan ta dhaho add commit aan dhaho, haddana push aan iraahdo, serverkay aadaysa wax alaala wixii mataqaana oo waxaana loo gelinayaa xagga. marka filekan qarsoon aan la tiri karinin. marka haddaad isku dayda sida caadigana u tirtirtid ilaa aad special command isticmaashid maahane, aad la tiraynin oo aadan arkaynin, waxa weeye wuxuu track garaynayaa oo la socda filekaaga uu la socda iyo wax alaala wixii meesha aad gelisid buu record garaynaya oo wax ka qoraya. marka waxyaabaha aan sameynayna waxaa ka mid ah stepka ku xiga inta aanan iska horboodinin. kan waan sameynay. okay, stepka ku xiga waxa weeye waxaan sameynaynaa directories. laba directory aan sameynaynaa oo aan sidii aan u sameynay databaseka aan u sameynay schemas aan u sameynay ayaa waxaan u baahannahay meel codekii aan gelino. databaseka datada baa la gelinaya marka lagu xareynayo mid walbaba schemadiisa. kuwaana waxaa weeye meeshii codekii source codekii aan generate garayn doono oo jhipster noo generate garaynayo, meelaha aan gelin doono wey, ama projectiga aan isticmaali doono magacyadooda weeye. marka labada projecti ayaan hadda halkan ku sameynayaa. make directory wuxuu ahaa gateway, okay, kan kalena wuxuu ahaa get directory nat property and registration. okay, now if we do ls and we have two more, laba waxaa ku jirta meeshaas folder oo cusub oo aan sameynay. sida caadiga ah waxaan u baahannahay okay, intaan u gudbinin kaas. okay, kaas waan sameynay, gudbaynaa isagana. prepare tmax screen intaan u gudbin kaas. actually yeah, okay, I can do that. okay, waxaa jira tmax waa google garayn kartaa. maadaama waxyaabaha aan halkan idinkugu soo bandhigi doono ay badnaan doonaan oo screenka mataqaana ilaa iyo sidaad aragteen markaan cashirka sameynaynay.
casharkan markaan halkan idii sharaxay waxaan oo dhan kan dhammaantood intaan ka ahayn browserka iyo mongodb-ga iyo midkaas aysan ka ahayn mid walba waxaan u baahnaan doonaa inaan terminal inta u furno aan kicino aan xirno bahalkii marka intii aan 4 terminal isgarab yaalla aan furfuri lahaa oo mirba mid aan switch inta ku sameeya aad wareeri lahaydeen sida hadda masalan halkan oo kale terminal baan furay mid kale aan furi karaa halkan haddana halkaasaan furi karaa waa mid kale cusub weeye marka intaan saa sameyn lahaa waxaan sameynayaa si fudud baan sameynayaa oo si fudud baan sameynayaa marka waxaan isticmaalayaa system kala qaybinaya hal screen intana siiya 4 qaybood noogu kala qaybinaya oo la yiraahdo Tmax baan leeyahay Tmax sida aragtaan uu ka duwan hoostan baan cagaaran buu soo geliyay wuxuu ku sheegayaa screenka qofku mar walba meesha uu joogo buu ku sheegayaa waxaan ku sameynayaa marka waxaan sameynayaa marka Tmax-gan hadda aan sameynay screenka wuxuu magac mid walba magac buu noogu yeelaya hadda midkaan oo kale hadda halkan aragtaan Mac Pro baa ku taala waa screenka aan joogo isagaan si kala qaybinaya haddaan rabo inaan magaciisa bedelo waan bedeli karaa waxaan leeyahay print waxyar iga ahaada magacaan u bixinayo waxaa waaye waxaan u bixinayaa kan ugu horeeya jhipster registry aan u bixinaynaa midkan magaciisa aan iri kanaan u bixinaynaa midkan magaciisaan ka bixinaynaa kaas jhipster registry aan leenahay midkaas waa screenka aan ku kicin doono halka aan ku kicin doono kaas aan u bixinaynaa paste grab si easy ay noogu fududaato musu kobiyeynin okay gacantaan ku qorayaa registry okay printf sorry okay sida aragtaan hadda magacii halkaas wuu noo bedelay inkastoo aan coma ka hormariyay waxaan ka qaadi doonaa comadaas magacaas marka markastoo aan screen joogo screenkaas haddaad rabtaan inaad ogaataan halka magaca halkaasaad ka eegaysaa jhipster registry meeshay ku qoran tahay magaca kalaa imaanaya haddaan screen kala joogo comadan okay this is the problem okay okay hadda ka baxday save waaye marka kaas waa halkaas noo jooga magaca halkaas uu yahay haddii aan rabo marka inaan screen kale baan furanayaa kanaan laba usii kala qaybsanayaa control B aan isla qabanayaa kadib quote baan taabanayaa way siinaysaa markaas screenka hadda laba ii kala qaybiyey midkaas kore iyo midkan kore iyo midkan hoose buu iiga dhigay kan kale magacakiisa soo ma jeedid macbook baa ku qoran isagana waxaan u bixinaynaa waa iska bedelaynaa waxaan u bixinaynaa magacii ku xigay muxuu ahaa waxaan u bixinaynaa property okay property registration aan u bixinaynaa oo ah netprop reg aan u bixinaynaa si ay noogu fududaato wax cilmiga badan ma soo kordhinaysa kaliya waxaan inayna wareerin baan rabaa anigu si fudud baan ku tusi karaa si saan ka fudud hadda ku tusi karaa xaqiiqdii ma garanayo marka screen cusub buu sameeyay marka waxaan soo koobiyeysanayna magacii hore kii wixii aan qoraynay maanta dhammaantaad hayb garayn karno noo magacaabayay screenkan magaca noogu bixinayay waxaan u bixinaynaa NAT National Prop Reg National Property Registration okay enter sidaad aragtaan iyadana way noqotay actually waxaan soo koobiyey midii ku jirayba okay aldanayd okay hadartaan National Property Reg buu leeyahay kanaan laba usii kala qaybinaya haddana isaga laftigiisaan u baahannahay sababta afar screen baan rabaa inaan kala qaybiyo sidaan idiin sheegay
control B, another one. Okay, kan database kan ka dhiganaya. Waxaan leeyahay MySQL aan u bixinaya. meeshii database kan ka ran gareynaya ka dhiganaya si aan u buka warwareeginin. MySQL u bixi isagana waqti badan baa naga dhawanaysa laakiin muhiimka fahanka weeye. Okay, waxaan rabaa kan hore inaan tago asagana labo si kala qaybiyo. Qaybtii gateway-ga iyo waxaan u kala qaybinayaa iyo qaybtii kale. Okay, control B, okay, Q0. Okay, markaad tabska u kala wareegaysid waxaad isticmaalaysaa waxaad taabanaysaa control B and then waad ka foqaysaa and then Q isla markaa waxaad gaarsiinaysaa numberka uu yahay 0 1 2 3 4 way ilaa iyo 3 tabs way mid walba number buu leeyahay. Misal haddaan taabto kale control B number baad arkaysaa soo baxaya waad arki doontaa isla markaaba aan Q taabto soo majida 0 1 uu leeyahay midka afraad markaan ku daran wuu soo bixi doonaa. Control B haddana dheh screenkan u baana inaan sameeyo kala jar kan waxaan ugu yeeraynaa gateway. Okay, kan gateway u bixi wili khaldana amaan paste gareeyo. Okay, kana gateway baan u bixinaynaa. Okay, hadda aragtaan gateway baa halkaas ka soo baxday sida ujeedaan meeshaas. Gateway baa ka soo baxday halkaas. Kan haddaan tagno ku xiga aan tagno sida isagana waxa waa midkii mid walba meesha aan joogna soo baxaysa marka in si markaa wareegtid ba halkaas eeg mid walba commands badan iyo waxyaabo badan baa soo geli doona logs badan baa soo geli doona qormaya. Waxaan leeyahay control B Q1 nage actually one waa midkaan joognayba control B Q2. Okay, kan oo kale baa tagnay net property registration soo baxday. Okay, net waa okay again ka bilawnaa marka dib noo celi meeshaan markan yar kan waxoogaa buu naga wareeriyay meeshii aan maraynay dib baan u noqonaynaa. Okay, waan diyaarinay kaas waxaan u baahannahay hadda inaan soo clone gareyno jhipster registry-ga. Okay, jhipster registry waa halkan idin sheegayay oo isku xirayay systemka si gooniya Microsoft isku xirayay asaguna anagu develop gareyna uma baahna applicationkeena codekeeda kama mid aha si gooniya ayaa meel server gooniya intaan ku shubno ama aan intaan soo download gareysano ayaan server gooniya ku shubaynaa kadibna applicationadeena ayuu noo configure gareynaya. Okay, Google gareynayna meesha laga helayo jhipster registry. Kan waa kanade soo qarisay. Okay, waa kana jhipster registry-ga sidaad aragtaan waxaan sameynaynaa oo kala gareynaynaa ecobee baan leeyahay bahalkiisa ecobee waxaan ku noqonayaa meeshii jhipster registry-ga ahayd oo kii ugu horeeyay ahaa ayaan tagayaa. Control B Q0. Okay, kan ugu horeeyaan joogaa hadda just clear gareebo kor ay tago waxaan qorayaa marka isagana waxaan fiirinayaa horta meesha aan joogo inta aan waxba sameynin meel khaldan baan joogaa. haddaan soo clone gareeyo oo halkaas ku xareeyo meelaan loogu talagelin weeye waa meeshii property-gaan joogaa ayaan gudihiisa baan joog sida aragtaan. Dib uga noqon leeyahay laba mar oo isku xigta noqo actually 3 mar noqo. Okay, haddeertaan xaggeen joogaa. Okay, waxaan joogaa actually in badan baan noqday ma fiicnayn. Lulde okay, training. Okay, haddaan dhaho cd backend digin oo kusii jira maleyna. Okay, gudaha national property register systemkeena kama mid ahaan sidaan idiin sheegay sida jhipster uu banaanka uga yahay oo kala camal ayuu kana banaanka uga noqonaya waa server gooniya oo rangareysmaya oo bahalka u rangareysmaya marka halkaana ku kala gareynaya isaga halkaana ka rangareynaya sida caadigaana hadda waxyaabaha hadda gacanta asaan uga sameynayna marka systemkaaga serverada productionka aad ku ridaysid oo doonaysid in dadkii loogu talagalay ay isticmaalaan
sidaan hadda aan u silcayno u rafaadayno uguma maartaqaana aan wafrimeysid mar alla markaa systemkaaga diyaarisid waxaad isticmaalaysaa docker commands buu leeyahay dheg waxaa leedahay serverka ay generate garay xaggaa ku tur serverka ay generate garay xaggaa ku tur waa arki doonaa sida quruxda badan uu systemka nooga dhigayo marka inta aanan clone dhihinin git inaan ka hormariyo weeye aan dhaho clone halkan igu clone garee ninka la yiraahdo inaayis muxuu ah aan noo koobiyeysan yahay okay jhipster registry halka geli qabiilkiisana waa naqaan soo socda ya ka bacdi uu dhamaan doonaa aad uma cusla okay hadda haddaan fiirino waxa meeshan ku jira actually waa saddexdan waa ku jira kii nationalkii baa ku jira iyo kii jhipster ninkana wuu noo soo galay hadeertaan asaga markaasaan ku bilaabaynaa isagaan rangareysanaynaa intaanan wax kala samayn horta saas mana leeyahay horta amarada aan raacnay amarka aan raacnay inaan amar diir noqona okay waan samaynay inta aanan generate garayn iska sameynaynaa iska rangareynaynaa si aan u aragna bal inuu kacay oo uu shaqaynayo isaga independent uu ka yahay kuwa kale kuma xirna isaga goonidiisa u kicin kadhaa so marka waxaan leenahay jhipster registry waan dhahnay waxba kuma jiraan soo maahan ayaa ku jiraan waxa uu soo download gareynay wuu buuxa okay waxaan leenahay marka noo kici service discovery-gan ama systemkan dhexe oo isku xiraya service-yadeena oo dhan ninkii isku xirayay aan idinkugu celiyay haddaad wareerteen mar kale ninka aan kicinayno waa ninkan dhexe weeye ninkaas dhexe weeye jhipster register waa ninka isku xiraya gateway-ga property-gan midkan maaragtay property registration systemka iyo population registration systemka xataa haddii labadan system ee kale ee labadan microservice hadday rabaan inay isla xiriiraan ma ahan marka qofku uu doonayo inuu la xiriiro backendiga keliya inuu always gateway-ga soo marayo hadday rabaan inay isla xiriiraan waa inay kan dhexe marka hore yiraahdaan qofkaasaan u baahanahay systemkan kalean u baahanahay adresskiisa iyo meeshan kala xiriiray ii sheeg messagkiisa messagedana u wadaay inuu dhaha wey labadan toos iskulama xiriiri karaan ilaa ay soo maraan ninkan dhexe oo hadda aan kicinayno okay aan tagno isagaan kicinaynaa isagu waxa weeye sidaad aragtaan waa just web spring boot application caadiya ayay sameeyeen oo ay ku dhex dareen mataqaanaa librarieskii Netflix ay sameeyeen iyo Eureka bay ku dhex dareen sidii jhipsterkii caadiga ahaba u kacaya marka waxaan leenahay Maven wrapper w taagan tahay oo localka loogu talagalay in lagu ran gareeyo enter baa leenahay marka haddaan rabno marka inaan aragno wuu kacaya sida aragtaan haddaan rabno inaan weynaysto screenka aan soo dhaweysto sidii website oo kale camal linka markaa ku dhufatid pageka fullka oo tagtid oo kale waxaan ku dhufanayaa control b baan leeyahay and then z baan taabanayaa zoom zoom gareeba gudaha egal hadhowna sidoo kale control z baa taabanaysaa meeshaadii horaad ku noqonaysaa sida u kacayaan arkaynaa okay wuu soo kacay sidaad aragtaan halkan ayuu ku jiraa aniga marka kulay way waxa ii fudud in haddaan control command aan taabto kadibna aan ku dhufto addresskaas laba mar haddaan ku dhufto double click haddaan ku sameeyo wuxuu launch gareynayaa browser iyo launch gareynaya browserkan filaya idaan hadda u marin marka control but waxaad taabanaysaa command kadibna addresska dushiisa waxaad ku dhufanaysaa laba mar sida ii muuqata blank screen buu kasoo baxay ma soo baxayo Maven keliyaan rangareynay sida caadiga ah Mavenka marka aad rangareysid waxaa weeye in uu download gareeyo maxaa la yiraahdaa inuu download gareeyo dependencygii javaga ahaa iyo waxyaabihii dhammaa u baahnayo dhan balse nasiib xumo waxaa kaloo ku jira meesha Angular baa la socda maadaama ay web application tahay camal oo in dadka inta login lagu sameeyo rabo Angularku wuxuu wataa dependency gooniya oo yon lagu rangareynayo marka haddii ma uusan ku dhufayn sida caadiga inuu yon automatically sameeyay ahayd laakiin anaga waxaan sameynaynaa yon install baan leenahay si wixii JavaScript la xiriiro dhan oo dependency wixii Javaga Mavenka sameeyay wixii JavaScript la xiriiro dhan oo dependency yonka noo sameynaya so sababta applicationku waa application spring boot ah oo Angular lagu la dhex galiyay weeye oo isticmaalaysa
library-gii ay sameeyeen Netflix ay ugu talagaleen service discovery-ga ee la yiraahdo Eureka. Okay, baar inuu qaadan doonaan u mooyaanaya. Waan ka soconaynaa dhib ma lahan, asaga waan usoo noqonaynaa, asaga dhihi doonaa. Okay, tan ku xigta ayaan sameynaynaa, oo wixii ku xigtay baan aadaynaa. tan ku xigta waxaa weeye horta waan sameynay miya labada maan aan generate garaynin. Waxaan sameyn doonaa gudahan u gelaynaa, kadibna waxaan generate garayn doonaa laba microservice oo midna uu yahay gateway-gii. Actually midkan backend hadda samey baan leeyahay. Network. Okay, amardidi aan noqon inaan bilowno. Okay, kan dib baan uga noqonaynaa. waxyaabaha ku fiican tahay waxaa ka mid ah oo kale control B intuu soo wado. Actually installation-kii uu dhameeyay umaleynaya. Fiiriso dhameeya filaya. Let's run it. Okay, waan garanaynaa sidii mataqaanaa sidii Java program camal Spring Boot application camal aan garanaynaa. sida aragtaan waa Spring Boot JHipster-ka laftigiisu waa wuxuu generate garanayaa. Haddaad ereyga JHipster ku rartaan wax kale ma cashirka horaan kusoo sharaxay. waa script caadiya oo noo generate garanaya code Java ah oo anaga aan ran garayn karno oo mataqaanaa inta aan wax kusii darsan karno ilaa iyo xadna wax nasku ka xirxiraya Spring Boot loginka JHipster-ka maxaa yiraahdaa Angular ku wixii nasku ka xirxiraya. Okay, haddana haddaan ran garanaynaa actually am si fudud boogu noqona meeshii marka hore uu kiciyay oo ahayd halkan aan fiirino. Good, sida aragtaan adeertaan JavaScript dependency iyo kuwii Java dependency wixii dhanba uu soo install garay uu ran garaysmaya. Haddaan login dhaho waa kana register. Marka inta kale waxaan kale waa iska caadi, waa akhbaar la xiriirta systemkan hadda uu ku ran garaysmayo applicationkan oo ku soconayo oo computerkan la xiriirta akhbaartiisa. Balse qaybta ugu muhiimsan aan rabno waxaa weeye instance register. Ogow bahalkan wax kale maaha, waa qayb dhexe oo list diiwaan gelisa dhammaan microservice-yada meelaha kala jirjiro dhan. Kadib markay doonayaan isla xiriiraan buu isku xirxiraya. waa adigu nin meel dhex taagan waxa weeye mataqaana qofkii rabo hadba fariin u geynaya ama dhahaya xaggaas aad dhahayo waa traffic wadada taagna. Okay, sida aragtaan halkan akhbaartu soo geli lahayd waxba kuma jiraan. Okay, aan ka soconno aan gudaha tagno. waxaana la ka doonayaa inaan inta gudaha galno aan microservice backend iyo generate garayno. waan tagayaa. Okay, ninkan uma baahnin iska ran garoobo. Control B iyo Z haddaan taabano meeshaan horaan ku noqonaynaa afarteeni screen ee quruxda badnayd baan ku noqonaynaa. midka aan rabno gateway-gan ma ahan sida aad aragtaan. midka aan rabno waa midkan aan doonayna inaan tagno oo ah kii registration-ka sameynayay backend-ga sameynayay. Okay, Control B key 2. Okay, waa joognaa. ogaa waa inta qofku la qabsanayo waa dhib meelan, laakiin mar haddaad la qabsatid si adigoon dareemayna screen-mada u kala boodboodaysa. shortcuts badan bay leeyihiin oo inaad xafido madaxa ku haysa loo baahan yahay. Okay, hadda halkan baan joognaa. waxaan joognaa hubina meesha aan joogno. waxaan joognaa National Property Register-ka meesha saxda ahayd aan joognaa actually, laakiin kuma jirno folderkii aan u baahnayn oo ahaa nat-ka midka ku bilaabanayay. kaybaan gudaha sii gelinaa. haddaad banaankiisa ku ran garaysid JHipster-ka baro faylashaada meel khaldan u dhigaya. marka inaad mar walba ku jirtid waa folderka saxda ah inaad hubisid weeye inaad ku jirtid sida kan oo kale hadda aan u galnay oo kale. gudihiisa waxba kuma sii jiraan baan filayaa. marka waxaan generate garaynaa back-end system-kii. laba system kan gateway-ga waan generate garayn doonaa, kan back-end-gana waan generate garayn doonaa labadaba. Okay, JHipster baan leenahay. waxaan doonayaa inaan program cusub sameeyo. Good, meesheena yareed buu nagu cariiriyey oo naga buuxbuuxiyey. su-aaluu rabaa in nagu weydiinaya laakiin screen-ka full aan iska qaadanaynaa. Control B Z aan taabanaynaa. screen-ka full buu noo noqday. Okay, dhacay monolithic application si accidentally u doortay. Control C baan taabanayaa khalday. Control C oo darafteed waxaa weeye iga jooji waxaa doonaysid ma wado ma rabo. dib baan u noqonayaa JHipster isoo bilow baan leeyahay haddana mar kale.
okay muxuu weydiinayaa application noocee doonaysa monolithic kii hore aan sameynaynay oo wax oo dhan la isku geynaya ida tusayo diagramkii koobaadna weeye kan kalena waxaa weeye microservice application oo back endia markaad sameynaysid iyo mid gateway ah oo hal mid oo wixii oo dhan isku ku xirxiraya sidaan hore u sharaxayba haddaba kii microservice back endigaan rabnaa inaan sameeyo magacaan u bixinayo waa natpropreg-ka asaga filekii meesha aan ku jirno ka gartay magacaan u bixin doono oo buu yiri okay igu bixi baan leeyahay podkee rabtaa inaad ku ran garaysid podka 80821 ayaan doonayaa inaan ku sameeyo maadaama server badan ay meesha ku jiraan okay ma waxaad doonaysaa buu yiri inaad isticmaashid solutions.property-ga package name-ka aan u bixinaya java classeska actually property intaas dhib ma lahan laftigiisa saas igu daa haddii kalena sidaan anaga u qoranaya wuxuu leeyahay ma doonaysaa inaad isticmaashid jhipster registry inuu message-yada kugu xiro systemyo kale mise waxaad doonaysaa mid kale isagaan doonaya sababto ah waa kii aan ii sheegayay wuu noo rangaraysaman yahay si fiican buu u qiyaasay inaan rabna kaas marka isaga laftigiisa rabnaa baan leenahay yes isagaan doonaynaa JSON web tokens authentication marka serverka iyaga laftigiisa halkan yaala waxyaabaha aan doonaya inaad fahantaan waxaa weeye APIs ayay kan markii serverkan uu maxaa la yirahdaa serviceyadan isla xiriirayaan mid walba markuu mid kale la xiriirayo haddii aad doonaysid wax muhiima inay ay meesha ku jiraan oo aad doonin in qof walbaba iska download garayn karta wax kasta waa inaad secure garaysataa waxyaabaha lagu secure garaysto waxaa kamid ah JSON web tokens kaas oo kale camal baa kamid ah oo API walba qof walba waa in token uu wataa iskama wici kara API-yada uu expose gareeyo systemkan marka ma doonaysaa buu leeyahay systemka marka lala soo xiriirayo in aad secure garaysid oo meeshan hadda halkaas arkaysa laga soo xiriirayo APIs kale oo systemyadan kale ay ka soo wacayaan in aad secure ka dhigtid oo systemka soo wacaya uu secure oo token haysto oo la yaqaano miyuu qof soo wacaya waxa uu yahay liskama wici kara systemyadiisa ha sidaasaan rabaa baan leeyahay I'm sorry okay JSON web tokens ka okay waan rabnaa okay database-ka ma data MongoDB rabtaa ma MySQL database baa rabtaa iyo wax lamid uu leeyahay kan SQL database kan rabaa MySQL kan noociisaan kasii rabaa weliba kan memory-ga ma raba ee waxaan rabaa midka computerka toos aan ugu shubtay oo serverkayga computerkayga ku ran gareynayo haddaa kan memory-ga samaysid uma baahnid inaad mid si gooniya computerkaaga MySQL ugu shubtid ama inaad waxaad u baahan tahay kan hadda aan doortay inaad computerka ku shubtid weeye ama inaad docker isticmaashid instant image rangareynaysa MySQL oo computerkaaga ku jira MySQL edor baan leeyahay Hazelcast-ga waxa weeye qaabkii caching-ka distributed oo isticmaalaysay Hibernate ku isticmaalaya markuu database-ka wax ka doonaya ama ka soo saarayo si uusan mar walba connections u samaynin badan oo wixii uu maaragtay u save garaysto wixii data aan isbedelayn inta badan oo database-ka laga raadiyo oo inta badan aan isbedelinin ayaa waxaa lagu hayaa meel memory oo soke kadib baa markaas systemka si fast loogu gudbiyaa si database tripska loo yareeyo okay Hazelcast isticmaal baan leeyahay Maven ama Gradle kan doona isticmaali karaa laakiin maadaama dadku badankiis ay Maven fahmayaan inkastoo Gradle anigu aan jeclahay laakiin Maven baan sameynaya search engine ma doonaysaa inaad ku dartid ma doonaysaa inaad mataqaanaa servicekan entity-yadiisa la raadin karo oo haddii uu properties yahay property-ga laftigiisa in la raadin karo oo la isticmaalayo Elasticsearch search engine-kaas in lagu raadin karo hawa in la raadin karaan doonaynaa baa leenahay waxaanu ka dhan waa SDK dad kale ay qoreen oo mataqaanaa anaga noo fududeynaya yes baan leeyahay luqad internationalization baan doonayaa okay English baan doonayaa Arabic ma fahmo French ige Soomaali waan ku dari doonaa hadii la yiraahdo waan kusoo dareynaa iyadoo Soomaaliya hadda luqadaha jhipster uu support gareeyo kuma jirto Soomaali kuma jirto balse waa kusoo dari doonaa hadii la yiraahdo anaga ku dari doono oo waan u dari doonaa si ay ugu soo daraan okay French baan leenahay wax testing ma u baahan tahay ma testing uma baahni JavaScript-ga dhinaceeda waa backend system and would you like to install generators jhipster from jhipster market no I don't want to install anything okay hadda marka wuxuu sameynayaa application-kii uu noo generate gareynayaa sidaad aragtaan application-kii back-endiga ahayd waa diyaar haddii aan fiirino
sidaad aragtaan halkaas baad ku aragtaan. Haddii aan doonayo inaan ku furo markaas halkii waxaan u baahanaa sorry inaan kan u baahanaa okay si toos uguma kicin karo command line-ka mararka qaarkood keena marka waxaa weeye fiiriyaa intaan dhaho programkan igu kici IDE-ga waxaa weeye jhipsterka. Jhipsterku wuxuu leeyahay qaab si toos aad ugu sheegi kartid. Jhipsterka waxaan ka wadaa IDE-ga waxaa weeye IntelliJ-gan weeye. Hadda programku ma kacsana, laakiin haddaan rabo inaan command line-ka kasoo kiciyo waxaan leeyahay waxaan isticmaashaa projectigan uu yahay project object mappingkiisu yahay mavenkiisu yahay pomexkiisu yahay kan iran gare. Okay, sida arki doontaan wuu soo saari doonaa, wuu ii keenay. So projectiga hadda aan generate garinay oo jhipsterkan ku generate garinay waa Spring Boot application waaye, inkastoo uu soo wada weli IntelliJ-ga uu soo wada. Haddii aad doonaysid inaad command line-ka sidaas oo kale camal uga ran garaysid IntelliJ-ga waa inaad iska ii soo baxee backend training redetected. Okay, so good. Okay. Gitki ayaa taragelinayso ma jid jhipster qaata maxaa yiraahdaa IntelliJ. So marka haddii aad rabtid sida aan IDE-ga aan u sameeyay oo aan command line-ka uga kiciyay IntelliJ-gan haddaad doonto inaad samaysid waxaad tegaysaa tools oo leedahay markaad install garaysid, inkastoo nooca versionka aad u baahan tahay maaragtay uu yahay aboutkiisa kaasi. But anyway versionka u baahan tahay hadduu yahay maaragtay waxaad u baahan tahay midka ultimate-ka ah. Kan laba nooc weeye IntelliJ-gu, midna waa community edition, midna waxaa weeye ultimate edition ay dhahaan. Kan ultimate edition ka fiican oo waxyaabo feature badan oo inta badan waa lacag, laakiin qaabab kalena haddaad raadis waa heli kadhaa maaragtay lacag la-aan aad ku heli kartid. akhbaarteeda oo kaasina haddaad email ay soo diraan. waxaan sameynaynaa marka toolska halkaan aad leedahay waxaan tegaynaa command line launcher aad leedahay, create command line launcher. Kadib wuxuu filekaas wuxuu ku xareynayaa ku create gareynayaa meeshaada systemkaaga meesha maaragtay pathkiisa oo wax laga raadiyo, failasha laga raadiyo halkaasuu kuugu generate gareynaya. Aniga hore uu igu jiraa kuma celinayo. Sida aragtaan idin sheegay waa Spring Boot application dhammaan Java-gi aan u baahnayn. Structure-kan waa structure ka dhow gadaal baa ka sharaxi doona. Structure-kan waa structure-kii application-ku Spring Boot-ka ay u baahnayd microservices-ka aad u sameyn lahayd dhammaan waxyaabihii aad u baahnayd oo dhankaas sida aragtaan wixii configuration-ka ahaa, xataa logging-kii, synchronizationkii, maaragtay database configuration-kii, metrics information-ka aad arki doontaan aan qaadhowda ka tusi doono. wax kasta iyada halkan aspect oriented programming wax aspect logging buu isticmaalaya. iyadan si fiican baan kugu sharaxi doonaa waqti kale. oo sida aragtaan Spring Boot wuxuu support garayaa labadaba wuu support garayaa aspect oriented programming as well as object oriented programming. Marka idin sharaxi doona haddii la yiraahdo. hadda marka waxaan sameynay back endigii aan sameynay, laakiin waa skeleton weeye ay ku jiraan waxyaabihii muhiimka ahaa aan u baahnayn. wax business logic annaga aan sameynay kuma jiraan. waxaan kaliya sameynay systemkii oo diyaar ah, laakiin wixii uu qaban lahaa oo annaga gaarka noo ahayd oo ay ka mid tahay in addresskii register gareeyo, inuu mataqaana guryihii register gareeyo, in wixii oo dhan uu sameyn lahaa weli gooni weeye. taas qaab kale waxaa idin tusi doonaa business logic markii aad saa projectiga u samaysid automatically jhipster adoo isticmaalaya aad leedahay wax allaala waxaan u baahanahay ii generate gare oo ay ka mid tahay screenmadii AngularJS-ka, waxaa ka mid ah back endigii repositories-kii database ku xiriya service-yadii, controllers-kii, caching information-kii, database table-ladii, waxaas oo dhan data wixii aad ku gurayso o dhan xataa adigoo isticmaalaya. marka dib baan uga baxayaa. kan waad aragteen waan ku kiciyey ka waxaan ku noqonayaa casharkeennii ka ku xigay.
amaradu maxay ahayd markan labadan samee baa la yiri kan waan sameeyey gatewaygii baa ii haray generate gareyna gatewaygii baa haddana ku noqonayaa okay waxaan ku noqonayaa marka kan waa diyaar sidaan aragtay ma rangareynayo laakiin waan usoo noqon doonaa rangareyntiisa ama haddaan doonaba haddaan iska rangareynaynaba si aanan waqti noogu badbaadiyo waxaan leeyahay marka xageen joognaa masaxanahay wasaxanahay maven wrapper rangarey baan leenahay xasuusnow database-ki way rangareysan tahay sababta systemkan database buu u baahan yahay database-kii waan rangareynay laakiin hal cilad baad soo bixi doonta sidaan u jeedo waxaan ilaawnay in aan passwordkii systemkan ku dhex gareyno inuu diidi doono inuu agta halkaas MySQL kuu diida soo ma jeedid sababta password database-kayga markaan sameynaynay wuxuu u baahnaa halkiibuu u baahnaa wuxuu u baahnaa localhost no password soo ma jeed so marka password la-aan ma uu doonayo inaan inta istaajino oo aan tagno ninkan aan tagno ayaan waxaan sameynaynaa halkan baa waxaan ku set gareynaynaa passwordka inaan u sheegno database-ka meeshuu kaga xirmayo sida aragtaan laba qaab ayaa systemkan loo marka la generate gareynayo codekiisa loo generate gareeyaa mar waa inaa qaab computerkaaga ku dhex jira oo development profile la yiraahdo aad ku samaysid marna waa inaa qaab serverkii loogu talagalay in dadku ay ka download gareystaan ama systemka ay ka isticmaalaan aad u gelinaysid marka waxaan tegaynaa meeshan source-kan tegaynaa waxaan idin tusayaa meesha database-ka looga daro akhbaarteeda informationkeeda ayaan idin tusayaa actually resources-ka tag kadib configuration-ka tegaynaa kadib filekan arkaysaan application-ka ay ku qoran tahay waa file wixii generic ah oo ama productionka ama development-ga meesha serverka productionka ama computerkaaga wax ku develop gareynaysid akhbaartiisa guud lagu xareeyo wixii kale ee gooni u ah wuxuu leeyahay labadan application dev iyo application product application devku waxa weeye computerkan wax ku develop gareynayno haddii aan u baahano masalan database inuu ku xirmo kale database-kaasna ay computerkan ku dhex jirto url-keeda meeshaan ka specify gareyn lahayn iyo akhbaaro kaloo fara badan kana productionka haddii masalan server kale inta database-ka lagu shubo url loo sameeyo port loo sameeyo la yiraahdo meesha marka kaas waa laba qaybood oo keliya hadda labada tusaalaha aan hadda rabo inaan tuso weeye laakiin waxyaabo fara badan ayaad arki doontaan halkan oo aad ugu sheegi kartid maaragtay serverka xageebuu ku jira ii sheeg serverkan registrationka sameynaya Eureka oo kii haddaan rageynayno registryga ah waxaa kaloo halkaan uga sheegi kartaa profileska imise profile ayuu support gareynayaa profileka active-ka ah waa dev kuwaas gadaal baa idkaga sharaxi doonaa waxba aad hadda iskugu wareerinayna laakiin meesha hadda aan doonaya waxa weeye qaybta hoos imaanaysa data source-ka data source-ku waxa weeye jhipsterka waa taqaanaa database-ku isticmaalayo waa sida aragtaan hadda sida aragtaan xataa yaa u sheegay sida aragtaan wuxuu generate gareeyay proprietary skiimadii aan raadinaynay laakiin rootka passwordkii wuu qiyaasay laakiin wuxuu qiyaasay usernameki laakiin passwordkii ma yaqaana marka admin baan gelinaynaa meeshaas si waana save gareynaynaa maadaama ay production aanan gelaynin kan uma baahnin adminka kan qaybta productionka waa intii oo kale camal baa ku jirta isagana laakiin serverka productionka passwordkiisa ma naqaano marka ma set gareynayno data source-ka passwordkeeda ma set gareynayno isagoo daynaynaa sida kan keliyaan u baahannahay inaan set gareysano isagana waa noo diyaar rootka waa user rootka waa root passwordkina waa admin serverkii MySQL-ka ahaa ee aan ran gareynaynay okay now waxaan ku noqonaynaa meeshii hadayta fail garoobeysay ee halkan ahayd annagoo og inuu fail garoobay waxaan leenahay haddana ran gareebl aan aragnay balan markaana waxaad haysa wuu soo socdaa hadda sida muuqata very good noloshu way fiicantahay si fiican buu u socdaa ilaa had wax dhiba ma arkinin good
sida aragtaan mar allaala markuu URL-kaas kuu soo baxo wax cilada error ka dambeeya oo soo bixinin systemkaaga si fiican buu u rangaraysmayaa podcast 88 haddaan damacno inaan ku dhufano kan oo aan rahno waxba meel fiican nama geynayo sababtoo ah looguma talagelin systemkan in toos loogu browser loogu furo ogaa waa back end system way waxa ujeedku waxa weeye in systemkaas system kale uu waca mooyaane wax HTML iyo AngularJS iyo waxaasi midna kuma aanan tirin waa back end kaliya weeye waxba kuu soo saari maayo haddaad tirahdid maaragtay this application is a microservice which has been generated by using it's not front end you cannot just call macnaha iskama wici kadhid ma garatay the front end should be generated on a JHipster gateway it's serving REST APIs under API URL waxaas oo dhan kuu sheegay laakiin waa naqaanaa marka horeba qalad baan u taabanay in aan galno marka aan dib u noqdo hadda waxaan rabaa inaan eego JHipsterkii registry aan sameynaynay haddaayay aan sameynay halkaan u ahaa robio haddaan refresh gareyno bal in serverki systemkii hadda aan rangareynay ee back endiga ahaa in uu JHipsterka iska register gareeyay oo uu halkaan soo galaan eegayna bal aan refresh gareyno ilaan labaduba kii hore wuu rangaraysmayay kana waan ku darnay aan hubino sida aragtaan waa app weeye uu kacsan yahay systemkaas magaciisa waxaa la yidhahdaa net prop registration baa la yidhahdaa wana kaas waa diyaar back endigeena waa noo diyaar registrygiina wuu isku xiranmay labadaa waa isku xirmeen maxaa keliya noo dhiman gatewaygii meedkii angularkii iyo back mataqaanaa iyo gatewaygii oo codsiyada qaban lahaa oo dhan yaa noo dhiman okay aan ku noqono marka waqtigii waa naga tegayo dadku casharkayga way nici doonaa sababtoo ah mid walbaba 2 saac way iska soconaya laakiin maalintaad rabtaan istaajista anigu firaaqan ku istaajiyo ku gogoyo ma hayraale ahaada okay kan waan sameynay waan ka noqonaynaa control b baan taabanaynaa z sidii aan kusoo galnay meesheedii horaan ku noqonaynaa marka labadan dhexe midka kore iyo kan dhexeba labaduba way kacsan yihiin gatewayga waa midka ka horeeya control b baan leeyahay q1 igu celi numberka meesha 1ka ah oo meesha halkaas aan joogo iga clear garaa waxaan ma doonayo okay now xageen joogaa always weligaa hubi meesha aad joogtid intaada waxba generate garaynin nationalkaasaan joogaa laakiin waxaan u baahanahay cd gateway inaan dhaho haddii kale wax badan baa kaa khasaaraya markaad aad generate garaysid bahalkii okay hadda gatewaygii waan joogaa waan hubaa marka waxaan u baahanahay JHipster gateway okay maxaan qalday JHipster okay error gateway is not known command qalday okay okay JHipster gateway okay I'll just double check okay PWD عشان نشوف مساحة بارت Dual Solutions Training okay okay فعلى هذا waxaan JHipster clean aan qora wey dii kale wuxuu umaleynaya inaan bahalkii dhaho asaga sidii waxaan niidada ku dhacday inay mataqaanaa command soo qaadanayso balse JHipster kaliyaan leeyahay gateway kaliyaan leeyahay taabanaya Microsoft gateway okay waa saxanahay Microsoft waxaan u dhahaa ma garanaya microservices gateway kadib waxaan leenahay applicationka magaca u bixinaysa gatewayga laftiisa noogu bixi by default isagaaba qaatayba portka 8080 haddii production yahayna baalkii 80 baa ku fiican Lul Solutions property no we're gonna call it actually property maahan waxyaabo badan baa rabaa inuu noqdo so com lul
property kaliya ma doonayna Lul Solutions gateway noo dheh gateway okay maxaa doonaysaa buu leeyahay aan aqrino do you want to use JHipster registry to configure yep which type of authentication would you like to use JSON Web Tokens authentication stateless I'm happy with that okay SQL okay MySQL is the one I want what's that okay now I want not persistent I want MySQL عادية and I want Maven okay and then search engine definitely I want that definitely and Hazelcast cluster ده I want that as well كودفو أو كدقيق وكوتا كسر number 4 Angular 4 okay Angular كيف دون سنة سميتها ogow wuxuu generate gareynayaa waa gateway waxa weeye waa Spring Boot oo Spring Java application iyo front endgii wixii aad ku sameyn lahaa HTML kii wixii ku generate gareyn lahaa Angular 4 ka isticmaalayna inuu noo generate gareeyo HTML kii waxyaabaha u baahan qofka login kii waxaas dhan ku sameynayo Angular 4 ide ma doonaysaa inaad isticmaashid style sheet process yep happy with that yeah international so waa inaan luqadihii hadayta back endiga aan sameynay labada waan dooranayaa carabi ma rabo faransiisiga raali aad carabi ma rabo markaan leeyahay ma garanay inaan ku isku hadlin inaan kala jecelahay moodinin French okay wax testina ma doonaysaa oo hadhowka igu dar midkan maadaama front endiga uu ku jiro kaas baan ku darsanayaa marketplace ma doonaysaa no ma doonayo wax marketplace hadda wuxuu generate gareynayaa gateway-gii marka oga waxyaabaha aan doonay inaad fahantaan in aad qaabka microservice-ka fahantaan kadib si fudud ayaan idinku fahansiin karaa sida mataqaanaa service-ka loogu daro casharkan wax badan buu dheeraan doonaa casharada kusoo xiga xataa sababta waxaan doonayaa si deep inaan inta u dhexgalo code-ka dependency-ga library-yada ay isticmaalayaan waxyaabaha ay yiraahdaan design patterns-ka iyo wixii mataqaanaa best practices oo systemka ku jira qaabka ay systemku iskugu xirxirmayo waxaasoo dhan in saddex qayb kastaba aan ka sharaxo sida loo deploy gareynayo sida loo mataqaanaa inta loogu shubanayo systemka aad ugu shubaysid serveradaada sida u secure gareynaysid waxaasoo dhan gidi waan ka wada hadlaynaa hadii la yiraahdo waana muhiim in qof kasta oo shaqaalaha inuu fahmo sida qaabka maaragtay loo systemkiisa asaga mas'uulka haddii wax ka khaldamaan hadhow intuu mataqaanaa system uu setup gareeyay ama uusan secure ka dhiginin ama stepska best practice uu ka boodo hadhow waxaa imaanaysa in sidii la rabay ay wax u socon waayaan ama la is eedayo waxa hadhow usheeda qof walba ushiisu soo qaadanaya difaaciisana waa galaya okay aan soo dhaweysano kan raali ahada microphone-ka iga fogaa okay kanaan ku dhaweynayaa control B zot okay waa isjoognaa wiilkan isagana waxaanu download gareeyay waa gateway-gii dib u noqon karta command line-kii wixii aan u baahnayn waxaan u baahnayn waan sameynay labadan waa sameynay labada waa generate gareynay wada doonay badan ma noqon inta ina gaaray moos dhayn inkastoo meel fog aan gaaranin okay inta uu sii socdo kan waxaan sameynayaa waxaan ku generate gareynayaa isagana waxaan ku launch gareynayaa naga jooji meel fog ma gaarin baa filaya okay waa generate gareys waxaan generate gareyn kartay okay waxaan tagayaa gudihiisa waa ku jirnaa aan hubin inaan gateway-ga ku jirno waa ku jirnaa marka waxaan leeyahay IDE igu ran garee pomkiisa kan ku kici isoo kici gateway-ga baraakiis horta asaga laftigiisa xataa inaan database-ka ka bedelna weeye sidii aad ogeydeen sababta database-ka mid walbaba si gooniya ugu xirmaa haddaan ku noqdo diagram-kii aan idin tusayay kan waa gateway-gii soo ma aragtaan lane-kan halkan database-ka schemada MySQL-ka toos ugu xirmaya gateway-giisa ku xirmaya kanna waa kii property registration-ka si toos asagoo database-ka ugu xirmaya kan JHipster registry uma baahna database ugama baahna laakiin kan
maxaa la dhahaa bahalkii uu u baahan yahay netpropka iyo midkan gatewayga isaguna way u baahan yihiin database kaas qiyaas baan iskaga dhigay si aan ii tuso in microservice-ka badan laakiin weli qorshaha nooguma jiro inaan sameyno kan keliya baan hadda microservice-yo badan baan sameyn karaa laakiin kaas keliya hadda sameynayna ku noqdo IntelliJ inuu noo soo kiciyay aan fiirino uu soo kiciyey gateway waa sida aragtaan magaciisa kore asagu kan wuxuu kaga duwan yahay kii hore ee back endiga ahaa wuxuu kaga duwan yahay waxaa ku jira front endigii angularkii baa ku jira sida hadda aad arkaysaan halkan sourceka haddaad tagtid main tagno qaybtii dockerka aan idin sheegayana waa kan xataa dockerku waa qayb muhiim oo ka mid ah systemkaaga mid walbaba container u sameyn lahaa gatewaygan haddaan u baahano in container loo sameeyo oo server gooniya lagu rangareeyo dockerkaas ku dhex jira ayaa noo ogolaanaya kan kale mid walbana dockerkaasu wataa oo la socdo waxyaabihii u baahda xataa databaseka hadduu u baahdo in loo rangareeyo waxaasoo dhan gid haddii aan fiirano dhinacii webka ah dhinacaas waa dhinaca javaga halkaana ku jirtaa wixii spring boot iyo wixii hoos imaanayay halkaana waa waxa ku jira wixii sidii hore aan idiin tusayey wixii angular js-ka faylashiisii typescript sida waxaad aragtaan video dhan waa kuwana pageskiisii oo dhan way ku jira waa codekii generate gareyn lahaa html-ka iyo css-ka iyo javascript-ga uu browserku fahmayo ee loo dirayo markuu codsi soo dirsado oo uu doonayo inuu qofku login sameeyo serverka halkaasay kaga jiraan codekaas halkaasuu kaga jira marka waxaan u baahannahay resourceka intaan tagno configurationka tagno in aan tagno filekii aan tegaynay ee applicationka ahaa oo aan ka bedelno passwordkii mysqlka aan ku darno waxaan hubinaynaa in uu isticmaalayo skiimadii ahayd gatewayga aan sameynay waa sax uu isticmaalayaa jahibster waa nin caqli badan haddii waxaan leenahay ogow waxaan filekan hadda aan isticmaalayna waa YAML XML ma ahan waxaan muhiim ah in aad spacekiisa iyo weliba xataa tabska sidaa u isticmaalaysid waxaa weeye waa convention over configuration baa la yihahdaa haddaad hal space ku dartid uu kaa diidaya inuu systemku run karaysmo sida marka lineka rootka uu leeyahay adminka ula sim oo ha ka bixbixinin waayo macna hierarchygan systemka laftigiisu wuu fahmaya marka waxyaabaha YAML-ka uu ku xun yahay taasaa ka mid ah oo hal space yar baa wuxuu systemka o dhanba kaa kharibi kara waan save gareynaynaa waan ka baxaynaa okay sida aragtaan haddaan jhipsterka meeshiisaan ku dhifto labadii project waa kana mid waa kana gatewaygii midna waa kii hore netpropkii aan sameynaynay hadda kan gatewaygaan babedelaynaa kaasna hore aan bedelan labadaba waxaan tegayaa yar raalli ahaada waxaan tegayaa waan tegayaa halkan ahaa leeyahay okay now ii run gareeya waan leeyahay maven wrapper okay gatewaygi aan rangareyna haddaan gatewayga rangareyno backendgii noo rangareysan yahay database-kii noo rangareysan tahay waxaan keliyaan u baahannahay markaas keliya waxaa weye inaan inta tijaabino aan isku xirxirnaa u baahanna ajib inuu rangareysma egto okay inta aanan ku dhufan sida halkan ay kuu sheegaysa soo ma jedid wuxuu kuu sheegayaa inuu web service uu sameeyey registration uu la sameeyey wuxuu kuu sheegayaa inuu member ka noqday oo IP addresskaas iyo portkaas mataqaanaa uu ka noqday service discovery data aan sameynaynay sidaan idin sheegaya control baan qabanayaa halkaan markaan rabo inaan launch gareeyo local hostiga laba mar baan ku dhufanayaa hopefully wuu furi doonaa diiday dhaga adeeg badan okay wuu soo baxay laakiin anyway akharkii wuu yeelay jhipsterka kan wuxuu register gareeyay sidaan aragno markii hadayt waa ninkii tijaabinaynay ninkan waa ninkii dhahayay service kasta oo magaalada soo gala hadduusan aniga ii imaanin ousan isregisteraynin wax fariina ma helayo qof la soo xiriiri kara ma lahan waa ninkii registriga ahaa marka aan fiirino bal in gatewaygii uu register gareeyay aan fiir ku darno aan eegaynaa ninkan waa ninkii booliska magaalada xukumay weye marka waa in asaga la iska diiwaan geliyaa waa sax soo ma jeed gatewaygii waa soo diiwaan geliyey wuxuu yidhi aniga gateway baa la yihahdaa hashkayguna numberkayguna waa kaas haddii unique ah haddii system ii baahdo
uu fariimo iisoo dirayo igu soo xir waa taqaanaa meesha iga helaysid app baan ah waana kacsanahay maaragtay waa caadaas baan maraya marka jahibistarkaan gelina marka waa kana systemkii haddirtaan wixii o dhan waa kacsanay databaseki wuu noo kacsan yahay back endigii serverka wuu kacsan yahay gatewaygi wuu kacsan yahay registrygii isku xirayana wuu kacsan yahay login baan leenahay fingers crossed in uu naga yeelo admin baan ku gelaynaa marka hore user admin ah si aan u aragna powerka oo dhan waa iyeelaa umaleynayaa haddii kale wuu diidi lahaa waxaan fiirinaynaa gatewayga aan eegaynaa okay netprobka systemyada uu la xiriirayo gatewaygu waxaa ka mid ah midkan baa ka mid ah oo halkaasaan kala xiriiri karnaa haddii aan doonayna in aan la xiriirno oo ku xiran mataqaanaa bahalkii waxaan ka rabay inaan fiiriyo APIs ka aan rabay inaan idin tuso in gatewaygan swaggerku waxa weeye sida casharka hore idinkugu sharaxay documenti kuu sheegaya microservice kasta documentationkiisa API-yadiisa sida loo wacayo parameterskay qaadanayaan waxay soo celinayaan si wixii dhan buu documenti gareynayaa masalan kan sada masalan userka kale camal resourceska sida userka loo register gareynayo sida maaragtay akhbaartiisa loo helayo sida login loogu sameynayo waxaasoo dhan buu kuu sheegaya profileka qofka accountkiisa halkan saas ka helaysid wixii o dhan kaasa ka ogaanaysid marka halkan waxaas haddaan calaamadaas haddaan drop down ku sameeyo defaultiga v2 API hoosteeda swaggerka ay ku qoran tahay laba APIs ayaan isticmaali karnaa mid waa midkan gatewayga ah API-yadan oo dhan halkan aad ku aragtaan oo dhan ay ku qoran tahay gateway APIs waxaa marka uu browserku soo wacayo back endigeena springka ah ee ku magacaaban gatewayga API-yadan mooyaane mase kale kulama soo xiriiri karo intaan oo API ayuu dhihi karaa marka uu doonayo in uu login sameeyo marka uu doonayo tusaale ahaan waxaan tusayaa markuu login sameynayo oo kale camal browserku marka uu qofka inta usoo saaro login uu leeyahay ama registrationka uu sameynayo authenticate try out soo ma jedid wuxuu leeyahay keelkaas waxaa weeye sida qaabkii commandka aan tusayay maalintii dhaweyto authenticate uu qofka usoo gudbinaya haddii kuwan aad fiirisid waa JSON web token waxa weeye oo add usernamekii iyo passwordkii oo la encrypt gareeyay oo sidaa laga dhigay weeye kadibna maaragtay headerka inta lagu soo daray la yiri qofkan authenticate garee kadibna wuxuu soo celinayaa API-ga waa kana passwordkii responsekii iyo akhbaartu soo celinayay 200 buu soo celiyey qofka adminkii ahaa informationkiisii ayuu halkan mataqaanaa headerkii wixii dhan ku soo celinaya rangare aan dhahna admin uu soo celiyay hadda kaas okay aan ka socono waqti badan wuu naga dhumin kan systemka hadda waran gareysmaya sidaan ujeedno aan ku noqono tusaalayaasheeni aan dhahna xaggee maraynaa by the way kan intaan dib ugu noqdo aan tusi API-yada kale API-gii kale ee ahaa kan buu ahaa miya xaggee marayna asig no agaano ahaa API-yada aan tusayay waa kuwii gatewayga laakiin kuwa haddaan doonaya inaan arko kuwii back endiga ee every microservice kasta aan ku darno halkan buu soo gelaya sidaad meeshaad u aragtaan kan waa kii API-yadii kale ee micro service-ka ahaa inta API uu soo dhigayo sidaa ujeedaan microservice-ka sidiisaba wuxuu qiimo leeyahay marka aad gelisid back endiga marka aad gelisid business logic ama ay ka mid tahay API register gareynaya dadka waxaa la yidhahdaa guryaha API delete gareynaya guryaha API register gareynaya postcode-ka iyo wadooyinka mid mataqaanaa magaca ka bedelaya waxaasoo dhan systemka marka anagu inta diyaarino aan rahno halkan noogu xareeya API-yadiisa oo dhan halkan ay kasoo baxayaan hadda wax badan ma aragtaan sidaa ujeedaan keliya okay aan ka soconno waqti badan baa nooga dhumay halkaas aan dib ugu noqdo kan okay labadaba launch IntelliJ waxaan labadan waa sameynay add password waa dheereyna halkaas labadaas waan sameynay gatewaygi labadaba password waa ku darnay explain the back end code without the business logic
waqti badan uma hayno laakiin waa idiin sheegi doonaa iyo designkan qaabka loo sameynayo. Kadib waxaan ku darsanaynaa commit code to GitHub. intaasaa ku daraya oo dheeraadka ah. kadib labadaas maahana inta kale waan sameynaa dhihi karaan. gaduudkan marinaya calaamadeeni colorkeeni gaduudka ahaa ama casaanka sida dadka qaarkiis u yaqaanaanba. raalli ahaada haddaan afkayga qeybo badan aad fahmi weysaan soo geliyo. explain back-end code without the business logic. I've tried. iska dheh wareerna been baa idin sheegaya. qaybtaas idima sharaxin laakiin waa madaxa idin saaraya. designka ma sameynin, commitkana haddaan sameynaynaa laakiin dima leh contracting hore usii qaadanayna. okay, waan save gareynayaa. waxaan tegayaa marka waxaan tusayaa marka hadda marka hadayt halkan waxaan ku aragnay inaan sameynay property register. maxaa la yirahdaa GitHubka aan ku sameynay national property register. waxba hadda kuma jiraan sidaad aragtaan, waa empty. laakiin waa inaan inta baxno aan wax ku soo darnaa. okay, wax ka tagay kama tegin soomaha. okay, waxaan sameynayaa marka waxaan wax alaal codekii aan sameynay ayaan meeshan kusoo xareynayaa. hadda tusaya qaabkan ugu soo xareynayo. git baan isticmaalayaa. ninkan iska rangareynaya iska jooji. control B z ida horta meeshii hore igu celi. kadib waa iska joojinayaa. midkaan raba meeshaan rabaan ka isticmaali karaa. gatewaygii baan joojiyey. control C haddaad tirahdid wuu kaa istaagayaa, systemku istaagaya. sababta daemon kuma jiro gudaha backendiga kama rangareysmayo. commandka halkan toos wuxuu ugu xiran yahay commandkaaga, command linekaaga. okay, xageen joogaa. okay, waxaan u baahanahay inaan dib u noqdo laba mar, hal mar keliya inaan dib u noqdo. waana sameeyey labadan file ee gatewayga ee aan sameeyey ee front endiga ah iyo back endiga. waa codekii aan open sourceka ka dhigaynay oo haddii dadka kale ay doonayaan inay wax ku daraan ay wax ka bedelaan. ogow front endiga hadda aad aragteen oo jhipsterka iyo waxaasoo dhan iyo htmlka iyo angularka waxaasoo dhan waa bedeli doonaa. application qurux badan oo u eg ka duwan midda hadda aad arkaysaan bay noqon doontaa. laakiin already basekii iyo wixii oo dhan iyo sida iskugu xirmayeen iyo registrygii wixii oo dhan waa noo banaanka. sababta aanan registryga ugu diraynin meesha yada waxa weeye registryga anytime aad soo download garaysan kartaa, si gooni ah u download garaysan kartaa. waxba kama aanan bedelin. marka code aadan waxba ka bedelaynin ma ahan inaad gelisid systemkaaga bahalkii. marka waxaan sameynaynaa registrygaas ha noo dambeeyo iyo databaseka informationkeeda. waxyaabaha uu ku fiican yahay jhipsterka waxa weeye haddaa is tirahda databaseka waad samaysay akhbaarteedii ma aadan qaadanin. wuxuu isticmaalaa marka hadda MySQL ay taho kale camal, wuxuu isticmaalaa waxa la yirahdo liquid base soo ma jeedi midan buu isticmaalaa. change logska wax allaala wixii akhbaaraan u baahnayn oo dhan ahaada telephone baa kasoo dhacay oo database columnskii wixii oo dhan structurekii databaseka halkan baad asagii oo dhammaystiran iyo wixii oo dhan ku arki kartaan. xataa datadii lagu gurayay user informationkii, authoritieskii, roleskii soo ma jeedid iyo userskii hadda oo defaultiga ah automatic ah waa kuwan halkaasaad ku aragtaa. wixii oo dhan halkaas igu jiraan. authoritieska mataqaanaa qofka la isku xirayo nameka iyo user role. hadda laba role keliya hadda ku jira oo qof kasta oo soo login gareeya. isagoo user ahaanna wuu isregister garan karaa, isagoo admin ahaanna mataqaanaa labadaas tusaale ahaan hadaayato si fiican waa istaajiyey ha u bixin. maaragtay waxaa keliya aan rabaa marka inaan idin tuso hadda sidii aan codeka u commit gareyn lahaa. waana joojinaya raalliga ahaada, waqti badan baa qaatay. waa daasheen baa maleyna waad hordooteen. dhowr maalmood baa ka dhigan kartaa laakiin dhib ma laha. waxaan leeyahay git commit. sababta as leedahay masalan hadda git add baan leeyahay. waxaad ku dartaa repositoryga. gitku laba repository buu leeyahay, mid local ah kan localka ku dar baan leeyahay. ls marka aan dhaho maxaa la yiraahdaa in hadda ay sameeyahay dibadaan sameyn waxa ma arkin. okay, git commit baan leeyahay. git commit message baan u bixinaya. waxaan leeyahay waa initial commit of jhipster generated back end and front end
okay, applications. All right. Okay, and macnaha waxa weeye git waxaad inta commit garaysid waxaa siga marka sidaan idiin sheegay laba repository buu leeyahay. Repositoryga localka ah ayuu ku copy gareeyey, laakiin wixii oo dhan inuu geliya halkaas ka arkaysaan waa idiin weyneynayaa. Sidaad arki kartaan wixii oo dhan wuxuu repositoryga geliya, laakiin weli haddii aad fiirisid gitkii weli ma aanan update garaynin, ma uusan update garaynin, ma uusan refresh daan dhaho sidiisii waa wax isbedelay ma laha. laakiin waa inaan push garayna marka waa inaan dhahnaa okay waxa hadda aan ku diray commitka aan ku sameeyey oo aad gelisay local repository-gaaga meesha aad codeka ku haysatid waxaad u dirtaa midda kula midka ah ee serverka kala taala github-ka ah wax allaala waxaa haysad akhbaara ku koobiyey sidaan ku dhahayno git push baan leenahay push garee. Okay, wixii o dhan hadda wuu push gareeyey serverka ku daraya sida aragtaan. waxaan leenahay hadda marka saaxiib refresh garee bal inaa wax ku yimaadeen. sheekada ma fiicno, dib baan u noqonayaa waxbaa khaldamay. ma leenayaa xabaar bay qaadanaysaa warkaas. Okay, deg baan wax ku rabnaa marka sida aragtaan gatewaygii waa kana, backendigiina waa kana. labadii code aan gacanta ku sameynayna labadaas code baan hadda bedelaynaa. qof kasta oo idin ka mid ah hadda wuu download garayn karaa wuuna run garayn karaa hadda meel kasta aad joogtaan. marka waan qurxin doonaa, waan habeyn doonaa instructionska wada raaca. soo hawsheeda halkaas ay ku bilaabatay already wixii o dhan halkaas baa mataqaanaa documentation badan baan kusoo dari doonaa insha allah halkan oo si fiican u sharaxaya projectigan iyo sida aad u run garayn kartid iyo waxaas oo dhan iyo gidi waana maintain garayn doonaa. khayr badan baa idin rajeynayaa. علينا عليك هذا وهذا كل شيء.